السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبكيga daawadahayga qiimaha badan oo waxaan maanta barnaamijkeena kaga hadli doonaa maxaa loo dilay walaalkeenii qaaliga ahaa tooraheenii badda kaasi oo waqti badan inuu madadarin jiray sidoo kalena ahaa samafale qaaliya dad badan oo samafalay dad badan oo sabool ahaa ka saaray saboolnimada kuba darbajiifnimada ka saaray waqti badanna galiyay arinta kale ee ka hadlayna waxay tahay kinkiisii oo si adag uga hadlay arintan si weyn u cabaariyay dawladda Soomaaliya oo ka hadal arintan maadaama uu xidhnaa dirayska ciidamada Soomaaliya booliska ahaan askari ka tirsan booliska Soomaaliya oo dilay saaxiibkiisa kaasi oo la sheegay hay isku khilaafeen lacag dhaqaalaha oo loo ururiyay dadka danyarta taasi oo waqti badan taakulinay walaalkeenii qaaliga ahaa ee dilay Allahu naxariistee wiilkaas taalaha loo dhiso serious wiilkaas taalaha loo dhiso haddaad booliis tihiin wiilkaas taalaha loo dhiso waa haddii booliisnimada iyo ciidannimada ay leedahay weli sharaf anigu waxaa i dhalay gaashaanla sare xilligii siyaad bare dalkiisa u shaqaynayay istilna dalkiisa jecel booliisnimada waagaa sharafee lahayd hadda haddii ay weli sharaf leedahay magacayga aan leeyahay anuu adeegsanaya dhalinyarada afkoodana ku hadlaaya caanka ah waayo intuusan boliis ahayn ka hor anigoo kale u ahaa madadaaliye ayuu ahaa waxaa usoo daawasho tegi jiray kumanaan kun oo daawan jiray xeebta liidoo meeshay atooraha badda ugu baxday muuqaaladiisa waxa ay gaareen dalal kale oo qalaad amiin alfa soo dhawow walaalkay adaa meesha kabtanka ah ku arko muuqaaladiisa waxay gaari jireen dalal kale oo waxaa daawan jiray dad ajnabi ah siduu entertainmentiga ugu sameynayo atooraha badda intuusan boolis noqonin waxa uu ka dambeeyey bilicda magaalada muqdisho iyo in ay jeclaadaan dhalinyaro fara badan oo qurbaha jooga magaalada muqdisho waayo wiilkaas taalaha loo dhiso serious wiilkaas taalaha loo dhiso haddaad booliis tihiin wiilkaas taalaha loo dhiso waa haddii booliisnimada iyo ciidannimada ay leedahay weli sharaf anigu waxaa i dhalay gaashaanla sare xilligii siyaad bare dalkiisa u shaqaynayay istilna dalkiisa jecel booliisnimada waagaa sharafee lahayd hadda haddii ay weli sharaf leedahay magacayga aan leeyahay anuu adeegsanaya dhalinyarada afkoodana ku hadlaaya caanka ah waayo intuusan boliis ahayn ka hor anigoo kale u ahaa madadaaliye ayuu ahaa waxaa usoo daawasho tegi jiray kumanaan kun oo daawan jiray xeebta liidoo meeshay atooraha badda ugu baxday muuqaaladiisa waxa ay gaareen dalal kale oo qalaad amiin alfa soo dhawow walaalkay adaa meesha kabtanka ah ku arko muuqaaladiisa waxay gaari jireen dalal kale oo waxaa daawan jiray dad ajnabi ah siduu entertainmentiga ugu sameynayo atooraha badda intuusan boolis noqonin waxa uu ka dambeeyey bilicda magaalada muqdisho iyo in ay jeclaadaan dhalinyaro fara badan oo qurbaha jooga magaalada muqdisho waayo awad adiga maantama kula ahaa qof saaxiib dhowaa haween dhamaantiin inala ahaa arinta kiisay ka hadlayay in taalo loo dhiso walaalkeenii qaaliga ahaa maxay kula tahay adiga maxaa ka qabtaa mawduucan nagu reeb saaxiib committee-ga aragtideena la wada soo kala barteena YouTube-ka Cabdalla Deeqsina soo subscribe garee soo kala base-keena degdeg TV isagana waxa sameeysa follow sar xogdoon media-heena ee Facebook-geena si follow garee aad baad u mahadsan tahay dhammaan muuqaalkan ka daawa page-keena iyo soo kala YouTube-yeedana kala duwan aad baad ugu mahadsan tahay la jaaqadkaaga sida qurux badan inta joogto waan mahadsantiin dhamaantiin taageerayaasheena